السلام عليكم أصحابتي قاليها وأيضا السلام عليكم أدون كجوكتان وعليه وحين الله قاعد فروق سو dhawaada hadii ay tahay markii ku horeysay channelka soo booqatay subscribe inoo saar hadii muuqaalkan ku cajab gelin waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like ii saarto insha Allah iyo share gareysaan waxaan idin leeyahay gacan fروق soo dhawaada walaahi qaaliga arkaysan waxa maanta move ee nooga shaqeynta maanta xaafada walaalaha ee la joogo soo move codsadeen ee muuqaalkan ku soo qasanay مثلا وحاوي النبع عادي معها قلي يبر يوحنا وسوق صي حبة هون إيه كبسر علين وحكى عجرة كبسر علين عرفت اللي جاي شكل كرو هكذا في حلا يقصد يا صار كان بالتعود يا صار حلا إنه الدلو هكذا وحنا إنه صار وكذا قبل يديريست الحين وبتاتي معان بروكلي أو صومالكم أخانو وجيت عجرة يو حبة بردة halkan waxaa inoo saaran asagana sidoo kale hilib aan rabo inaan ka sameeyo maraq cuni lahaa insha Allah halkan waxaan ku diyaarsaday barbarooniga weli basas maan jarjarin bardhan sidoo kale insha Allah waxaan halkaas oo soo nadiifsaday hadda ayaan howlgalayaa la socod wanaagsan caadada ahayd waxaa waa hagartaan biyaha halkan kusoo diyaarsaday birtu inoo soo kulaatay marka aragtay muufada inay kugu dhagto xoogaha biyaha ku shubanaa بسم الله المفروض أروح حبة أورز أنا هذا دبينا وشوينا سلاح كراسي صبح حلو ولا كبري مثل ويل كي جيس اللي جوا مرك حتى عصر برتدي كلك تقولك هاي كبري كي أنا حسمي أساس أنا حسمي المفروض كذي من حسمي الشرحة دي ودلال سهل السكر ولا صبح حلو سلاح كنا سعد وحسن حرا ضهولك حتى كخلا مركي صاص نوعها السوق لشو أنا حسنيدنا إن شاء الله إن أنجديو وحنكرا مفتين نار عمل مصف قاس مركي أجديه واستعماشه دبك وكنا صار يقدم بناية برتا واصل أركان السوق صبح هذا صاص أنا سميها مفيد مركي لون أنا سميها مفيد من مرة سديد أيوة سياس أيوة وفي فيرنا مركز تو وكنترولا صاص نوبش عتاويلو أيوة موضة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حبدي كواد صاص أيوة كواد بيرتن كمل بس إن شاء الله كل يوم صاص يقول جزء انتهى وح جزء كسر روح ما شاء الله أنت شو شغلة ناس تعلنا حبدي لغات عطنا صاص مكحول وسوق الشارع فعنا مركز تجديد الزيت اللي هو بينا ما لا بنت هويا يمكن يقول لي بها بنت أكو جنبنا ليش أبغى نبتدي يا يوك السماسة هكا عبسنين دبكني كل هذا هدي أمرك هرت برت بيوكو فردسو كعجم مدعسو برت محافي عن إن تهاي يعني بر أخطو الإنسان يعني دب كل عيني سو برك خار كمدة سو برك خار يعني كوكو الإنسان مثلا إن شاء الله أنا فهمتين شجينا حبدي أجوب الرصاص أيه بصوب حساس كل خفيف كده بصوب حدي فاصوص أيه يمنا بعد muuqaalka waxaan jeclaystay inta dambe inaan cod saaro insha Allah halkan waxaan ku soo shubtay koob kadibna waxaan ku ridinayaa hal xab kaniini abuuranayo vitamin C vitamin C wuxuu ka caawinayaa maalintii inaad awood iyo energy inaad ka hesho insha Allah ila tijaabiya probe aniga daily maalin kasta ayaan isticmaalaa soo halkan waxaa iyadana ii yaalo vitamin D oo caruurta loogu talagalay markuu cunuga dhashto maalinkoo dhashto ka bilaabato ilaa 5 sano intuu ka gaarayo cunuga markii ugu horeysay cunuga iyo wiilka markii ugu horeeyay way iloobi jiray laakiin markii dib waxa ogaaday faa'iidada badan oo leeyahay soo maalin kasta ayaan isticmaalaa hadartaan go'aan ayaan ku gaaray marka waxa go'aan ku gaarto way wanaagsan tahay soo waxaan soo dhigtay horteeda meel aanan yani meel luuq hadarto iloobaysa bili aadan ayaa leeyahay يعني horteyda meel ay ka muuqanayso maal walba ayaan soo dhigtay insha Allah ku dadaala hadii aad qorba haday joogto halkaas waxaan ku soo shiitay cuntada gabadheed yarta babyska sida intisinaya caruurta muufadayni ayaa dubista noogu socoto sida arkaysan waxaan soo dhisay buur faanteen waqti dheer kadib waxa waay xabadii ugu dambeysay ayaa hadda ii saaran insha Allah ma sha Allah tabaaraka Allah wax yar ay dabada waxaan u leeyahay meesha dambe inay yar ka gubatay laakiin
inaba caadi maaha. Sida aragteen ayaan kusoo dubay. Halkan waxaa ii saaran waa hilibkii aan soo dalacay, basal iyo waxaan kusoo daray wax yaroo yaanyo ah. Kadibna waxaan ku daray spinach ama koosto ayaan kusoo daray. Intaa markay isku soo karkarto isku soo badbado, marka xabadii ugu dib maraqeen saas baradhada iyo waxaan kusoo daray kabsar caleen iyo waxaan kusoo daray barbarooniga cas iyo barbarooniga oo cagaaran labadaba kusoo daray oo si dhadeer ayaan usoo jaray. Maasha Allah tabaaraka Allah, lagama sheekeyn karo. Maraq muufo oo inaba caadi ahayn ayuu kusoo baxay. ugu dambeyn waxaa xilliga habeenkii markii la gaaray qadada kadib ayaa waxaan jeclaystay inaan u kariyo ilmaha basta macaroni yar oo fudud oo aan ku kariyay hilibkaas kuusan. soo basta macaroni inaba caadi maaha, aad ay u fududahay sida ciyaalkada u kariso. waxaa waaye 3 daqiiqo ayay ka qaadanaysaa ayada dhanba. 3 daqiiqo waa inta baastada ku shubtay ee karkarayso, inta kale isku dardarayso waxaa waaye ilaa 5 minute insha Allah. baastada markii aan soo kariyay waxaan kusoo kariyay waa yaanyo iyo wax yar oo xawaash kama badan, ilmaha caruurta uma fiicna xawaashyada badan. kadibna waxaan kusoo daray wax yar oo kabsar caleen ah si yar yar usoo jarjartay. marka intaa isku soo dhex gasho ayaan isla arki doona. waxaan ku darayaa crème fraîche ama caanaha oo whipped cream-ka ku darsan kartaa. caano alaala caanaha ay haysato oo markaas is leedahay caruurta fat ama yacni wax yar oo fat ay ka helayaan. inkastoo tan ay tahay fatkiisa ma badan, waa mildi. hal qand ayaan kusoo daray. marka waxaan u yeelaysaa dhadhan aad iyo aad u heer sareeyo ayuu u yeelaysaa. baastadan waxaa fiican markasta marka caruurta siinayso inay dheecaan yar ay leedahay si ay u fududaato inay yara laqlaqaan. ugu dambeyn baastadan sidaas quruxda badan ayay kusoo baxday. hadda waa inoo diyaaro. ogteen caruurta ma jecelo qudaarta iyo waxaa inta badan. hadda ugu dambeyn waxaa qolka ayaan waxaa rabaa fadhiga inaan gacanta yara mariyo, inkastoo uusan ahayn wasaq laakiin xoogaa is yaraa barkamaanka iyo waxa ayaan totoosinaya iyo miiska ayaan totoosinaya insha Allah. waxaa ognahay hadda ciyaaraha adduunka ayaa socdo, marka waxaa la jecel yahay ciyaarta in la isku imaado familka haddii ay isku dhow yihiin oo kaleeto in la wada fiirsado dhammaan. marka sidaa arkaysaa meesha waxaa fadhis waa walaashay. waxaan halkan ka gurguranayaa gabdhaha kareemaadka iyo wixii la marsanayay wajiga habeenkii oo kale ayaa looga saseexday. marka waxaan sameynayaa wixii dhan meeshan warqadan waxaa waaye ilmaha ayaa lagu baraa xayawaanaadka iyo waxyaabaha sida kuugu yar fududaato. ugu dambeyn waxaa waaye gurigeena waa soo hagaajina maasha Allah tabaaraka Allah. kaala iska arag. haddana waxaa shidanayna shumacyadeeni jawi degan. waxaa xilliga qabowga marka la gaaro shumacyada aad iyo aad ayay indhaha ugu fiican yihiin. yacni wax yar oo kuleelna waa ka helaysaa. waxaad dareemaysaa inaad ku jirto jawi barwaaqo ah. ma fahanteen? ku dadaal insha Allah. miiskeena sidaas quruxda badan ayaan kusoo sharaxanay. halkan waxaa soo saarnay 2 buug. halkan waxaa noogu jiro shumac ayaan soo dhex geliyay meesha. waxayna quruxda badnaan halkaas ayuu noogu jiraa. yacni dhaladii hore waan ka bedelay, dhaladan oo caadiga ayaan ku bedelay. maasha Allah tabaaraka Allah. sidaas qurux badan ayaan kusoo hagaajiyay. kaala iska arag, lagama sheekeyn karo. waxaa waa inta yar aad haysato marka waxaa fiican in aad haweysato uma baahnid waxyaabo kale inaad haysato. inta markaa gacanta ku jirto ayaa la toosistaa, ayaa la hagaajistaa. ugu dambeyn sidaas quruxda badan markay kusoo baxday waan soo hagaajiyay. waxaa waaye haddatan waxaan soo diyaarinayaa waxaa waaye fiiko ama yacni wax yar oo meesha ciyaarta markii la daawanayo macmacaan lagu cuno iyo waxa ayaan soo diyaarinay insha Allah. macmacaan kale idima tusin karo kamana gaarin, muuqaalka ayaa nagu dheeraaday xilligii. marka waxaan dansanay nalalka saas jawi qurux badan ayaan wada qaadanaynaa. aniga gabdhaha walaalaha ay la joogeen. kaala iska arag, lagama sheekeyn karin. ma fahanteen? waxaan rajeynayaa inaad ka bogateen. waa kana doolshadeena saas ayuu kusoo baxday. gabadha walaashay iga yar ayaa kusoo tuurtay, anigana kama gaarin. marka waa mashquulsanaa ilmaha. gabar yar ayaa iga xanuunsan oo hergab iga hay igu soo duceeyay insha Allah. waxaan rajeynayaa ducadiina inuu Ilaahay ii aqbalo. hergab xun ayaa iga hay beebiga. waxaan rajeynayaa inay igu soo duceysaan inuu Ilaahay ii caafiyo. halkan waxaa noogu jiro waa shaahigeeni ya shaah iyo sheeko ma maqasheen. halkan waxaan iska sheekeysanayna. waxaan idin leeyahay muuqaalka hadda inta idinla soo gaarteen muuqaalkii sheer gareeya laagtan ii saar insha Allah. waa idinkaga mahadcelinayaa la joogistiina quruxda badan markasta sida ii dhiirigelisaan. commentigina akhriskiisa kama daalo wallaahi bilaahi aad iyo aad. dad waxaan ahnay halkan ku midoobay oo walaale aan isgaranayn oo laakiin halkan saaxiib ku noqday.
waxaan rajeynaa muuqaalada aan soo duubo ama aan waqtiga geliyo inaad ka heshaan sida adiga waqti ii gelisaan ayaa anigana waqtigeyga idinku huraa inkastoo fiidiyada aan lasoo daaho waayo hooyo ciyaal iska haysta ayaan ahay iyo dulqaata insha allah waxaan rajeynayaa inay muuqaalada ii shaargareysaan asxaabtaada la wadaag walaalaha la wadaag familkaada la wadaag waana ku mahadsantihiin sida quruxda badan markasta ila socotaan waxaan idin leeyahay kheyr iyo caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo ayaan idin rajeynaa